السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سفر كان دير وان كسب بلاوي بلان هذا عن مقالة قال كعيه كجوجو وعن ربعين هذا اللي وداقو سفر كان مقعي سووحو يهي وعن هو مقعدري سفر كان إنه نقضه وسفر كان دبوشيسين الصوماليات وسفر كان دبوشيسين الصوماليات وعن ربع هالكن مقالة قال كعيو عن دونا يهينا نقطه هويجي دبوشيسين الصوماليات ومقالة تاريخية oo ka yimaadeen halgamayaashii dad ka mid ah ee ka yimaadeen madaxdii qaranka soo maray intoodii badnayd waa magaalo taariikhi ah markaasi waxay ahayd hal magaalo ay ahayd oo dadkeedu ay walaalo yihiin waana ku soo celinayna insha Allah magaaladan inay noqoto meeshii dibashiin Soomaaliya ka bilaaban lahayd hadduu Ilaahay yiraahdo waa mahadsantiin sida sharafta leh oo wanaagsan oo waaltinimada leh oo kalgacaltooyada leh oo Soomaalinimada leh oo midnimada leh aad noogu soo dhawayseen insha Allah waxaan u nimid inaan xog wareysano oo aan wax alla wixii aan isweydaarsan karno talooyina aan isku weydaarsanno oo aan ka shaqeyn magaalada inay noqoto magaaladii ee ka bilaabatay nabadda Soomaaliyeed ay ka bilaabatay magaaladii dibashiin Soomaaliyeed inaan dib ugu celinno sida meeshan ku taala inaan magaaladan qaybsan aan mideeno muhiimadeeda koowaad muhiimadda dawladda Soomaaliyeed muhiimadda qof walba mas'uul ah uu leedahay way magaalada inaan nabadeenno magaaladan inay noqoto magaalo hala dadka waalaha magaaladan gaalkacay inay noqdaan sida ay ahaan jireen oo aan ognahay inay tahay magaalada ugu weyn gobolada dhexe iyadoo qaybsan iyo magaalada ugu weyn tahay magaalada ee gobolada dhexe bal ka warrama iyadoo midaysan waxay noqon kartaa iyadoo nabada waxay noqon kartaa magaalada rugta ganacsiga ee Soomaaliyeed ay noqon kartaa iyo gobolka Hoydil walaalayaal waa mahadsantihiin insha Allahna waa kala warqadanayna laba maalmood soo socotaan joogna magaalada waxaan uga tagaynaa magaaladan iyadoo midaysan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سفر كان دير وان كسب بلاوي بلدان هذا عن مقالة قال كعيه كجوجو وعن رباعين هذا اللي وداقو سفر كان مقعي سووه يهي وعن هو مقعدري سفر كان إنه نقضه وسفر كدبوا هشيسين الصوماليات وسفر كدبوا هشيسين الصوماليات وعن رباع كان مقالة قال كعيه عن دونا يهينا نقطه هويجي دبوا هشيسين الصوماليات ومقالة تاريخية oo ka yimaadeen halgamayaashii dad ka mid ah ee ka yimaadeen madaxdii qaranka soo maray intoodii badnayd waa magaalo taariikhi ah markaasi waxay ahayd hal magaalo ay ahayd oo dadkeedu ay walaalo yihiin waana ku soo celinayna insha Allah magaaladan inay noqoto meeshii dib u heshiisiinta Soomaaliya ka bilaaban lahayd hadduu Ilaahay yiraahdo waa mahadsantiin sida sharafta leh oo wanaagsan oo waaltinimada leh oo kalgacaltooyada leh oo Soomaalinimada leh oo midnimada leh aad noogu soo dhaweyseen insha Allah waxaan u nimid inaan xog wareysano oo aan wax alla wixii aan isweydaarsan karno talooyina aan isku weydaarsanno oo aan ka shaqeyn magaalada inay noqoto magaaladii ka bilaabatay nabadda Soomaaliyeed ay ka bilaabatay magaaladii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed inaan dib ugu celinno sida meeshan ku taala inaan magaalada qaybsanaan mideenno muhiimadeena koowaad muhiimadda dawladda Soomaaliyeed muhiimadda qof walba mas'uul ah uu leedahay way magaalada inaan nabadeenno magaaladan inay noqoto magaalo hala dadka waalaha magaaladan gaalkacyo inay noqdaan sidii ay ahaan jireen oo aan ognahay inay tahay magaalada ugu weyn gobolada dhexe iyadoo qaybsan iyo magaalada ugu weyn tahay magaalada ee gobolada dhexe bal ka warrama iyadoo midaysan waxay noqon kartaa iyadoo nabada waxay noqon kartaa magaalada rugta ganacsiga ee Soomaaliyeed ay noqon kartaa iyo gobolka Hoydil walaalayaal waa mahadsantihiin insha Allahna waa kala warqadanayna laba maalmood soo socotaan joogna magaalada waxaan uga tagaynaa magaaladan iyadoo midaysan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Gaalkacyo wafdiga madaxweynaha dowladda federaalka ayaa garoonka diyaaradaha Gaalkacyo waxaa ku soo dhaweeyay madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Galmudug qaybaha bulshada iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo Gaalkacyo ku sii sugnaa inkastoo muddo dheer la sugayay wafdiga madaxweynaha haddana dadka Gaalkacyo oo aan kala qaybsanan ayaa si weyn uga qayb qaatay soo dhaweynta madaxweynaha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo fagaaro kula hadlay boqolaal dadweyne ah ayaa sheegay in safarkiisa uu ugu magacdaray safarka nabadda isla markaana inta Gaalkacyo uu ku sugan yahay uu ka qayb qaadan doono nabadda gobolka Mudug magaaladan Gaalkacyo aan doonayaa inay noqoto hoygii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed waa magaalo taariikhi ah oo ka yimaadeen halgamayaashii dad ka mid ah ee ka yimaadeen madaxdii qaranka soo maray intoodii badnayd waa magaalo taariikhi ah markaasi waxay ahayd hal magaalo ay ahayd oo dadkeedu ay walaalo yihiin waana ku soo celinayna insha Allah magaaladan inay noqoto meeshii dib u heshiisiinta Soomaaliya ka bilaaban lahayd hadduu Ilaahay yiraahdo waa mahadsantiin sida sharafta leh oo wanaagsan oo waaltinimada leh oo kalgacaltooyada leh oo Soomaalinimada leh oo midnimada leh aad noogu soo dhaweyseen insha Allah waxaan u nimid inaan xog wareysano oo aan wax alla wixii aan isweydaarsan karno talooyina aan isku weydaarsanno oo aan ka shaqeyn magaalada inay noqoto magaaladii ka bilaabatay nabadda Soomaaliyeed ay ka bilaabatay magaaladii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed inaan dib ugu celinno sida meeshan ku taala inaan magaalada qaybsanaan mideenno muhiimadeena koowaad muhiimadda dawladda Soomaaliyeed muhiimadda qof walba mas'uul ah uu leedahay way magaalada inaan nabadeenno magaaladan inay noqoto magaalo hala dadka waalaha magaaladan Gaalkacyo inay noqdaan sidii ay ahaan jireen oo aan ognahay inay tahay magaalada ugu weyn gobolada dhexe iyadoo qaybsan iyo magaalada ugu weyn tahay magaalada ee gobolada dhexe bal ka warrama iyadoo midaysan waxay noqon karto
cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo